الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، كلمتنا waxay ku saabsan tahay dul istaagayno xadiis saxiix oo nabigeena ka sugan salawaatullaahi wasalaamu calayh. xadiiska ay soo saareen alimaamu axmed fii musnadih wa abu daawuud fii sunanih min xadiisi thawbaan mawla rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala calayhi asalaatu wassalaam yuushiku alumam an tadaaca calaykum كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. رسولكنا صلوات الله وسلامه عليه حاكم إذا وحياله نوغا والرمي وحيالها دعي دونه إلى آخر الزمان. وحد مدى نبينا صلى الله عليه وسلم وحبضان وقداشي سدعي أسوغونا ندعين إنه وحوى البنوك العديي سيانوها أنه على بينه أنه حقيق سنه إنه قصوغنا هي حق. نبينا صلى الله عليه وسلم حجعت المحجة البيضاء ليلها كنهارها ونوغتها وحكي لي أباهنتها وحيتها مسلمين تنا يوصوا نقدان دخل كان نبينا ووغتها أي فهمان أي قاتان سي أي عزي أي نصري أي تمكين أي وهلان. مركان نبينا وحليه صلى الله عليه وسلم وحادوا قال ذا دمان إنا يسوكين هبر وعدان aad la mid noqotaan xeerada raashinka ku jira ama saxanka ee dadka ay wadaagaan hareeraha iyo gooyada intay ka fariistaan aanan loo turaynin si ay ku jirto nahma yacni mamanaan iyo raashin jacayl loo cunaayo xeerada waxa saaran oo loo murdinayo. sidaas oo kale baa lisugu kiin habarwacan doonaa waa lisugu kiin yeerani doonaa markaas sidaa ladiin cuni doonaa sida raashinka loo cunaayo saxanka ku jira. waxaa haddana gaaladaas ay ka kooban yihiin gaalo mabda ahaan aana iswaafaqsanayn, laakiin waxaa ka dhaxeeya uunuu yahay gaalnima alkufru millatun waaxida. laakiin qaarkooda qaarka kale bay lacnadayaan, qaarkooda qaarka kale bay col u yihiin. marka ilaahay baana dhammaan inoo sheegay waladiina kafaruu bacduhum qaarkooda qaarka kale inay acdaa iyo col u yihiin. gaaladaas markaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay inay muslimiinta dhammaan isugu soo habarwacani doonaan, sidaasuu nabigeenna u caddeeyey bay u dhacday. ama qadiiman wakhti hore ha noqoto laga soo bilaabo wakhtiga isticmaaraadka ay muslimiinta ku bilowdeen, ha noqoto xuruubtii ka dambaysay alxuruub asaliibiya, xuruubtii atataar, ha noqoto استيلاء العدو على أراضي المسلمين إلا قيب صدي خيرات كودي لقاتي لكلا جرجري سيئا نقودي عدد ويرانين. كل ذلك وحكم ذها وحيالها سنبينا صلوات الله وسلامه عليه تلماما. أخيرا ندى عصري أن يمال مهننا وها السعدة وحقفك مسلم كقرصون ماها وها دعي مدددو دولتي يمان هيد محاكو دعي، سيريا محاكو دعي، عراق محاكو دعي، ليبيا maxaa ku dhacay, akhiiran wa qadiiman maxaa ku socdaa meeshii ahayd falastiin. waxay ka mid tahay dhammaan duruustaas iyo cashirkaasuu nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi inoo sharxaayo inoo caddaynayo. ayib, nabigeena sala allahu calayhi wasalam markuu sidaa u sheegay waa ghariib, waa la isweydiiyey. saxaabada waxay ku yidhahdeen yaa rasuula allaahi, ma sababta gaalada isugu soo habarwacanayso inay annagana baabi'iyaan ma yaraanan yarnahayba? maya buu ku yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam, waad badan tihiin, laakiin badnaashadiinna laa qiimata laha, waxay tahay ma laha. wuxuu nabigeenna ku tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayhi daad xoor biyaha barkuu roobka badan de'o oo qashinka iyo wax walba ay qaadaan. qashinka wuxuu dul sabaynayaa biyaha dushooda, ayuu dul roorayaa, soconayaa. akhiiranna wuxuu ku dhammaanayaa meelaha biyaha ay fadhiistaan iyo godadka hareerahooda iyo meelaha godadka inuu qabsado
laba arrimood bay ku jirtaa arrinkaas muslimiinta tabardarridooda hawa badnaadaan magac ahaan waa daliilu nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi tusinaayo waxaa kaloo labaad qashinkaas siduu meelaha xun ugu dhammaadona gaalada hadafkooda wuxuu yahay muslimiinta inay baabi'iyaan mar walba isugu tegayaan waa inuusan waxba ka soo noqonin cagta la mariya halkaan ay ku dhammaadaan haddii sida hadafkooda iyo qasidkooda ay u soconi lahaydna islaamba ma soo gaarin halkan laakiin ilaahay baa diintiisa ilaashanaya muslimiinta ama daciif ha noqdaan ama cudud ha yeeshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan meel walbuu gaarsiinayaa suu nabigeenna inoo sheegay laa yatruku allaahu beyta madarin walaa wabarin ilaa adkhalahu allaahu hada addiin bicizi casiizin aw bidilli daliilin laba xaaladood bay diintan ku soconi doontaa marna muslimiinta agoodda iyo cududda leh waa sidii aan taariikhta ku soo marnay alcasru adahabi ka soo bilaab waqtigii nabigeenna saxaabada soo mar ilaa akhiiran ku imaw dowla cuhmaaniya cizi iyo sharaf waa maalinkii ay dabaqaayeen qoolkii nabigeenna naqzuuhum walaa yaqzuunana annagaa ku duulayn daarahooda ugu tegayna mar dambena nagu soo duuli maayaan marintaasaa socotay maalinkii taasay ka baxdayna diin islaam ayaan hakanin way socotay qaaradahay ka gudubtay guri walbay gashay marka nabigeenna wuxuu leeyahay marna dadka hogaamiyaasha iyo diinta cizi iyo sharaf ay leedahay bay ku soconi marna ayagoo tabar daran ayay haddana diinta soconi oo ilaahay baa ilaashanaya ilaa an yarita allaahu alarda waman calayha wa huwa khayru alwaarifiin marka gaalada hadafkoodana sidii daadxoorkaas inay noo baabi'iyaan oo qashinqubka noogu daraan waa hadaf ay doonayaan laakiin aan u xaqiiqoobin ayib markuu nabigeenna sheegay inaan badan nahay yaa naga badan hadda maanta falastiin ayaa caalamkao dhan indhaha ka daawanaya ibaada jamaaciya qatla cashwaa'iya aan la fiirsani karin ayaa ka socota intii dimuquraadiyad sheeganaysayna waxay ahaayeen buu ilaahay bannaanka soo dhigay intii islaam iyo iimaan sheeganaysayna intaa indhaha ka daawani bay ka mid yihiin waa dulliga uu nabigeenna tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayh nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xadiiska aakhirkiisa laba arrimood buu sheegay markii muslimiinta noocan oo kale ay noqdaan ilaahay wuxuu quluubta cadowgooda ka siibayaa wax cabsi la dhaha waa cabsidii muslimiintoo madiina joogo gaaladii shaam joogay ay oga cabsani jireen nabigeenna masiirata shahrin iyo ka badan ay ka kaadkaadini jireen tii baa meesha ka baxaysaa islaam muxuu yahay ayaana la leeyahay ayib cadowgii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubtooda cabsida annada ka siibaya waxaa kaloo nagu dhacaya annagana alwahan dacfi hawaan tabardarro liidnaan maxaa u sababa laba arrimood buu nabigeenna tilmaamayoo hal shay ku wada noqonayo xubu dunya wa karaahiyatu lmowt dhammaan waa un xubu dunya waayo qofka markuu doonaya adduunyadan inuu ku baaqi ahaado uu sii noolaado uu ku raaxaysto waa qof aanan geeri rabin amaa geerida cabsideeda hadday ahaani lahayd maqsuudka loo jeedo naf kasta geeri way ka baqaysaa waxay ka baqaysaa geerida waxa ka dambeeyo qabri iyo siraad iyo waxa ka dambeeyo xisaab iyo marka howlo ah taas waa arrin iimaanka ka mid ah taa ma aha markaa midda laga hadlaayo laakiin waa qofka adduunyadan bibidhaankeeda raaxadeeda inuu ka doorto ilaahay iyo diintiisa iyo aakhara middaasaa markaa muslimiinta halkaa dhigtay sababka markaa dacfiga keenay waa mid ah haddaba waxaan ku soo gebagabaynayaa oon ka qaadanaynaa xadiiska laba arrimood oo nabigeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi u bidhaamiyey midda koowaad maa hiya cawaamilu nnasri arrimaha guusha iyo muslimiinta cisiga iyo sharafka ay ku gaari karaan ee nabigeenna uu tilmaamay laga qaadanayo xadiiska imaa saraaxa ama si markaa talmiixa xadiiska ugu cad marka koowaad waxaa ka mid ah muslimiinta mar kasta ay qaataan diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala habaat ay sameeyaan oy ku sugnaadaan diintooda istiqaamo iyo toosnaan laga helo diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala oy bartaan oy ku dhaqmaan oy sii faafiyaan mar kasta oo la helo waxaa xaliif u noqonayaa garab u noqonayaa
nasri iyo guul ilaahay la garab jooga innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu lashhaad arrintaas sideed bay baaqi u ahaanaysaa la aglibanna ana wa rusuli baa sideeda baaqi u ahaanaysaa ayib wuxuu nabigeena salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi leeyahay xadiiska alimaamu muslim uu soo saaray min xadiidi abi hurayra waxaa ka mid ah mucjizaadka uu nabigeenna ilaahay ku xoojiyey gaalada inay ka baqi jireen ayagoo bil masaafo dhan u jira taa markaa waxay leeyihiin culimmada xadiisku inuu nabigeenna dhimashadiisa raacay oo halkaa ku dhammaaday ma aha arrintaasuu nabigeenna ilaahay ku xoojiyey ama nabiga ha noolaado ama ha dhinto sideeda bay baaqi u tahay laakiin shardi bay leedahayoo waa muslimiin istiqaamo leh in la helo mar kasta oo muslimiin diintooda ku toosan la helo cizigii iyo sharafkii ilaahay u ballanqaaday iyo nasrigii sidiisii buu ahaanayaa marka midda markaa naga maqan oon ku soo ceshani karno waa diintaannada inaan u laabanno kitaabkaanniga aan qabsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala aan addoommo dhab ah oo khaalisiin ah aan u noqonno qodobka kaleoo labaad waa mar kasta oo muslimiinta sunnadii nabigeenna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ay dabaqaan ay ka muuqato dhaqankooda ay ka muuqato afcaashooda ay ka muuqato suluugooda mar walba oy sunnada nabigeenna u dhow yihiin nasriga iyo guushana way u dhow yihiin bihada alxadiid almadkuur waxaa sitaa ka soo horjeedaa oo cagsi ah mar walba oo muslimiinta sunnadii nabigeenna ay ka fogaadaan nabigeenna ay khilaafaan haziima jab liidnaan waa u diyaar fii ghaswati uxud waxa dhacay wuxuu ku dhacay mukhaalafa amri rasuuli sala allahu calayhi wasalam saxaabadii shahiiday 70-ka ahaa dhibka waxa sababay wuxuu ahaa khalad ayaga xaggooda ka imaaday waana midda ilaahay nagu canaantay awalamaa asaabatkum musiibatun qultum qad asabtum midlayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum dhibka xaggiinnu ka imaaday nabigeena sal lla alay slam nimankuu buurta saaray kontonka ahaa uu yidhaahdee bartaa ku sugnaada yaanan halkaa nagala soo dhabarjabinin khilaafkii ay khilaafeen oy ka soo tageen buu dhibka ka bilowday wahaakadaa mar kasta oo muslimiinta ay ka fogaadaan sunnadii nabigeennana waxaa badanayaa dacfigooda liidnaantooda iyo sharaf darradooda mar walba muuqanaysaa nabigeena sal alla alay slam xadiiska alimaamu axmed uu soo saaray min xadiid cabdullahi bni cumar wuxuu leeyahay wajucila adillatu waasagaaru calaa man khaalafa amri mar walba liidnaan iyo hooseen waxaa dusha loo saaray cid kasta oo amarkayga khilaafta allah subxaanahu wa tacala qur-aanka muxuu leeyahay ina aladiina yuxaadduuna allaha warasuulah ulaa'ika fi ladalliin kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafa kuwaasay liidnaan u sugnaatay adduuniya aakharaba dhibka markaa muslimiinta haysto meel kale kama imaanin waa fogaanshaha sunnada nabigeenna laga fogaaday kitaabka ilaahay laga fogaaday adduunye wax la mooday dhibka waa kaa weeyey meel kasta uu la joogona waa daahir waa arrin muuqata ayib waxaa kaloo ka mid ah asbaabta ka mida min asbaabi aw min cawaamil الnasri wالtamkiin waxaa ka mida muslimiinta inay mar walba laazimaan alsabru waالtaqwa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ka cabsadaan oo wixii uu faray ay la imaadaan wixii uu ka reebay ay ka tagaan taqwada markay keligeeda soo aroorto iyadoon wax kale la soconin alixsaan iyo waxay culimmada ku fasiraan waa kelima jaamica bijamiici khisaali اlkhayri iyo wa khisaal ashari qofka inuu wixii wanaag ah oo ma'muuraadoo la farayna dhan la imaado wixii xumaan iyo manhiyaadoo laga reebay oo dhanna uu ka taga watattaquu markuu ilaahay leeyahay diintii waxay ka tagtay ma laha oo markaa muslimiin istiqaamo iyo toosnaan in laga helo ayib qodobka labaad dhibaato baa soo gaaraysa gaal buu xaggiisa ka soo gaaraya masaa'ibka baa ilaahay ku imtixaanaya taana waxaa lagaga gudbi karaa iyo cibaadaadka iyo wixii ilaahay na saarayna sabirkaa lagaga gudbi karaa sabirka daacaduu gelayaa macsiyada ka fogaanshaheeduu gelayaa wuxuu gelayaa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka aan la kulmayno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a mar kastood ilaahay ka baqdaan sabirna aad laasimtaan ilaahay makriga iyo cadowgooda iyo hagardaamadooda wax badan buu idinka kaafinayaa
taana marka waa arrin iidana meesha ka baxdayoo dhibka meesha naga haysto qodobadaas iidana xaqiijintooda meesha ka baxday waxaa kaloo nabigeena sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiiska aakhirkiisa min cawaamil alfashali walhaziima waxyaalaha keeni karo ummadda inay jabto cadowgeeda ay hoos gasho ku tunto waxa maanta dhici haya iyo wax ka sii xun ay marto waa xubbu dunyaa wa karaahiyatu lmowt adduunya jaceyl ayaa dhibaatadan iyo jabkan iyo muslimiinta maanta liidnaanta waxa u horseeday waa arrinkaa kaasuu markaa nabigeenna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inoo sharxaya ayib waxaa ka mid ah aafaadka iyo dhibaatada ay leedahay qofka markii adduunya ay laabtiisa iyo qalbigiisa ay ku weynaato waxaa ka mid ah ikhlaaskii baa meesha ka baxaya camal iyo cibaado iyo waxaad samaynayso waxaa laga yaabaa in badan arag maqal in loo sameeyo waana waxa maanta taagan wax walba oo maanta qofka uu suubinayo waa inuu shuhra caanimo arag iijeed inuu u sameeyo saa darteeda nabigeenna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu noo sheegay xadiiska uu soo saaray alimaam muslim min xadiidi abi hurayra naarta maalinta qiyaama dadka ugu horreeyo lagu aftixi doono gaalo baa dhooban halkan ehelu naarbaba ah goobtoodii iyo maxalkiiba loogu talagalay baa joogaa kuwaasoon la gaarin dad cibaado badnaay safka muslimiinta ku jiray ayaa loogu horraysiinayaa awalu man tusacaru bihim annaar maxay galabsadeen waxay waayeen ikhlaas camal iyo cibaadaad janno lagu mudani lahaa ayay sameeyeen saddexdaa qole wuxuu nabigeenna tilmaamay waxaa ka mid a nin qaari ah ama imaam ha noqdo ama macallin ha noqdo nin qaari oo kitaabka ilaahayna xifdiya dadkana bari jiray ayaa ugu horreeya ayib waxaa ku xiga nin shahiid ah naftiisii qaaliga ahayd annaga sidii noo muuqatay u waayey diinta islaamkan koryeelaya waxaa ku xiga nin xoolihiisa habeen iyo maalinba bixini jiray qolaha xoolahooda habeen iyo maalinna bixiya ilaahay muxuu u ballanqaaday inay janno leeyihiin aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli waannahaari siran wacalaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ninka shahiidka ah waa ninka jannada dalaq hor ka dhaha dembi iyo wax walba loo dhaafo waxaanaan deenka ahayn qofka qaari kitaabka ilaahay waa dadka ugu darajaadka sare haddana maxay naar ku muteen ikhlaas la waayey dartiisa maxaa keenay adduunye jecel ayib qodobka labaad waxaa baaba'aya walaalnimadii islaamkii waa tan in badan culimmada in ka mida intay halkaas soo istaagaan adulmu dulumaatun yowma alqiyaama waad maqashaan waa waxaan isku hayno maxaa keenay dhib kale ma keeni waa adduunye jecel adduunyada markaad jeclaato rixim ma taqaanid qaraabo ma taqaanid walaal ma taqaanid waalid ma taqaanid shilinka unbaad addoon u tahay waa dhibaatada marka ay leedahay idana waxaa intaas sii dheer inayban dhiigga annaga bannaysanno islayno birta iska asalno waa arrin annaga noo gooni ah caalamulislaami oo dhan buu dhibka ka socdaa laakiin annaga si gooni ahaane 40 sano ee reer bani israa'iil ay tiiha ku jireen kii oo xuruub dagaal islayn kala tabsi ayaan ku jirnaa daraad nin baa su'aal soo weydiinay aabihiisoo xoolo ka dhintay baa xoolihii in la dhaxlo loo baahday xoolo kale ma laha 3 balood uu ku lahaa muqdisho ayaa loo baahday in la iibiyo laba ka mida wuxuu yidhaahdee dad baa tabsaday oo ku fadhiyaa hawe ma laha ka soco hal baa awoodaan u leenahay inaan soo iibsanno marka sheekhow halkaas intaasuu noqdaye dhaxalkiinni bal noo qaybi waa yowmina haada waxa maanta waxa dhacayo dadka isku hayo waa dad muslimiina waa dad isku jinsiya waa dad isku luqade waa dad isku walaal si walbaba dhibaatadaas annagana noo sii dheer oo acdam jariima ah maxaa keenay waa adduunye jeceyl wax kale ma aha dhibaatadaas waa midda meeshan maanta na dhigtay muslimiintana waxaa kale qofka qalbigiisii inuu noqdo jawfaa faaruq ah cibaadaa samayni camalaa samayni qalbina ma haysid adduunyadii wareerkay kugu hayso waxaa ka mid aafaa dhici doon abaaraa dhici doonaan cunno la'aanaa dhici doontaa hadda markii waddooyinka go'een noodistan dadkii degganaay dhibka ugu weyn wuxuu ka soo waajahay dadkii tujarada ahaa ay wax ka gadani jireen
weligood macmiilka u ahaayeen warkiilo sokor oo 700 la gadaayo ama 1,000 shilin bilaahi calaykum tay u socotaa walaalkaada maad wax la qaybsatid maxaad dhiiga oga miiranaysaa waa dhibaatadaas waxa keenay waa adduunyo jecel طيب waxaa dhacaysaa markaa qofka humuum daa'im ah iyo faqri u muuqdo mar walba inuu arka taana nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi inoo sheegayo wuxuu leeyahay qofka hamigiisa adduunyo unay noqoto ilaahay 3 ibtilo iyo 3 imtixaan buu ku imtixaanaa imtixaanaadkaas waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala amuurihiisa oo dhan kala firdhiya mar walba waad un hankaagsan tahay waad mashquulsan tahay dhib baa ku haystaa laba xarigna isku xiri maysid waa cuqubo ku haysato adduunyo jaceelkan ka imaatay qodobka labaad faqriga carar baad leedahay adduunyo iyo xoolo gaari faqrigi baa ku muuqanaya oo indhahaada hortooda la dhigaya waxaa intaa ku sii dheer weligaa daal cidyaha ka baxaan wax walba samee maalinka caloosha hooyada ku jirta wixii ilaahay kuu qoray wax ka badan gaari maysid marka adin baa rafaadaya laakiin qofka haddii aakhare ay ku weyn tahay qalbigiisa hamigiisa ilaahay 3 bedelkooda 3 kale ugu abaalgudaya kow amuurihiisa iyo arrimihiisa oo dhan buu ilaahay u yasiraya waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra amuurihiisa ilaahay u sahlaya risqigii ciriiriga kan kaga jiray yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib waxaa kale wuxuu leeyahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam adduunya baa hortiisa soo fariisanaysaa iyadoo waliba qasbanoo sanka ka tolan kaana wuu gaari waaye adigana way ku hor imaane waa siday saxaabatu rasuulillaahi ahaayeen ayagoo safka hore ku jiro diinta ilaahay meesha ugu habboon ka taagan iyo haddana tujara ahaayeen qaar baa awqaaftoodii maanta socotaa ay ka tageen dhibaatadaas marka waa xubbu dunya qodobka afraad on kaga baxaya waxaa ka mid ah adduunyo jaceelka wuxuu keenaa qofka diintiisaba inuu iibsado adduunka inuu kaala weynaado diintaadii iyo qiyamkaadii iyo akhlaaqiyaadkaadii rishu ayuu qofka qaadanayaa iyo laaloosh ama bixinayaa adduunyo inaan ku gaaro darteeda waa arrin macruuf ah dadkan adduunyada isku eriyo ama meelahan dawladda kontarogyada iyo waxyaalaha ka raadsado waxa ka dhaxeeyo kulley in badan waa laga yaaba inaad ka warhaysaan markaa rishwada ama bixi oo la hoos oro gaalada oo madaxda sii inaad adduunyo ku gaaro darteeda xaaraan u bannayso ayib qof baa caqligiisii u baabi'inayaa mukhaadaraad iyo drugs iyo balaayo uu cuno qalbigiisii u dilaya qof baa sharafkiisii u gadanayaa adduunyo yar inuu gaaro iyo mansab islaamnimadiisa oo dhan dhinac dhiganaya qamiiska iska tuuraya wax walba samaynaya banaysanaya marka ugu dambeeyna inuu diinta ka dhaxbaxa insilaaxa ayaa imaanaysa dhibkan oo dhan isku dar wuxuu ka imaaday adduunyo jacayl طيب الله سبحانه وتعالى qolada gaalnimada qalbigooda ku weynaaday cadaabka kululna u ballan qaaday ilaahay u yaboohay wuxuu sabab uga dhigay cadaabka waxa ay ku muteen dalika biannahu mustahabbu alxayaati addunya cala alaakhirah adduunya bay ka jeclaadeen ilaahay wixii yaallay agtiisa oo aakhira gaalo bay sidaa ku noqdeen ilaahayna gaal ma hanuuniyo adduunyada markaa dhibaatada ay keensanayso waxaa ka mid ah qofka inay mashquul fara badan ay ku abuurto ilaahayna wuxuu ku tilmaamay innama alxayaatu addunya lacibun wa lahwun waa ciyaar carruur iyo wax maskaxda mashquuliyo intaas way adduunya oo dhanba sii wasoo wad marka qofkii mashquul bay ku ridi waxay kaga ridi daacaadkii cibaadaadkii qur-aanka inaad akhrisato sunnada nabigeena inaad barato inaad istiqaamo iyo toosnaan lagaa helo waxaa keenaya arrinta adduunyo raadinteeda waajibaadkii ku saarnay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar silatu larxaam wixii ku saarna waxaad la gudani wayni adduunyo jaceylkeeda iyo raadinteeda muslimiinta inay isdhisaan quwa iimaaniya quwa maadiya inay samaysaan si diinta ilaahay
ay ugu nusreeyaan waxaa meesha ka saaraya adduunyo jacayl ayib qolyaha hadda carabta ah ee nagana hantida badan nagana xoolaha badan lagana yaabaa erey xataa inay ku taageerin meesha dhibka ka socdo haddii la dhaho dhiig ahaanna islaamnimada marka laga soo tago naga xiga waxa intaa u keenaya waxay tahay manaasibteenna iyo intanaan haysano yaanan waaynin intayay carqaladaga gelin marka arrintaas marka waa arrinta keentay muslimiinta maanta dhibaatada haysato inay halkaa dhigta ilaahay baan markaa subxaanahu wa tacaala weydiinaynaa nasri iyo gargaar degdega inuu na siiyo cibaad allah saluu wasalimuu calaa man umirtum bisalaati wasalaami biamri min rabbi alcaalamiin يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر بنا دينك واعل بنا كلمتك واجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين اللهم أنزل على المسلمين رحمة عامة وهداية عامة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل كلمتهم واحدة ورايتهم واحدة واجعلهم يدا واحدة وقوة واحدة على من سواهم ولا تجعل لأعدائهم منة عليهم يا قوي يا عزيز اللهم أحقن دماء المسلمين اللهم أحقن دماء المسلمين اللهم أحقن دماء المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في غزة يا رب العالمين اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بالكفرة والملحدين الذين يسدون عن دينك ويقاتلون عبادك المؤمنين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم سلط عليهم من يصومهم سوء العذاب يا قوي يا عزيز عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون